wafti ballaaran oo isugu jirta heer wasiiro iyo xildhibaano isla markaasina hogaaminayo wasiir dawladda arrimaha dibadda ee isku xidhka jaaliyadaha caalamiga ee maamulka Khaatumo Dr. Cabdirashiid Cawil Cabdi Hiirad ayaa gaaray deegaamo fara badan oo ay ka mid yihiin deegaanka Dhalaamo Cune Banyaal Carraweyn Dhilaalo iyo Sool joogto waftidan oo dadka kala hadlay meel fagaara ayaa sheegay inay dadka ugu baaqayaan inay ka qayb qaataan sidii loo dardargelin lahaa maamulka waxaanu idinka sidnaa salaan baanu idinka sidnaa madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa gudoomiyaha baarlamaanka iyo dhammaan dadka halka ku shiraya deegaamada aanu marayno waxayna soo fareen inaan horta salaan idin gaarsiino salaan kadib waxayna soo fareen labada qodob ee maxaan ku yiraahdaa wasiirku idin sheegay qodob saddexaad aan doonayaa anigu idin sheego oo khuseeya magaalada tan Sool joogto la yiraahdo magaalada Sool joogto la yiraahdo iska waraysan mayno taariikhdeeda iska waraysan mayno dhibaatada soo gaadhay iska waraysan mayno joogto waxay ku sugan dadku hadalku inay bay had iyo jeer aan isu sheegaan oo laga soo xigtay dad aan la fariin cad oo fiican hortiisa iyo afkiisa iyo carabkiisa waxa ka muuqdo inaad ku dhaqanto aniga Rashiid Cawil Cabdi Hiirad baa la yiraahdaa nin soo joogto iyo buuhooda iyo deegaanka u dhashay baa Khaatumo walla waxaan maqlayaa hadda suuqa laga dhaxleeyahay war anagu isaaq iyo maxaan ku dhahdaa maamulka Soomaaliland idin ma soo wadno haddii maamulka Soomaaliland anigayga Rashiid Cawil Cabdi Hiirad markaa soo joogto imanayo dee ha yimaado anigu xagaan aadaaya kale meeshan meel aan ahayn oo aan u dhashay horta miyaa jirta buuhooda meel aan ahayn oo aan u dhashay miyaa jirta ma waxaan uga wareegaa buuhooda oo Taleex iyo waxaan aadaa Saaxdheer iyo waxaan aadaa oo haddaad timaadid dhinaca Wilow Soomaaliland baa noo imanaysa ha noo imanin miyaan ku ekeeya kuma ekeenayno Soomaaliland ha dhacdo ganina ma jiro daa'iman cidna ugu marna sheegan maayo waa waajib aan leeyahay ama mid uu leeyahay inta markaan ka soo gudbo waynu ka hadhay dadkii Soomaaliyeed marna Puntland baynu ordaynaa marna Hargeysa iyo Saaqooyin intiinan ma sheegay in aadidii ka tira yar baa waxa ka shaqeynaysa lacaqaata la yiraahdaa waa dad iimaankii ka tagay cidina ka anti badan ma jirto cidina ka tira badan ma jirto inaynu isku tashanno oo midhihii u horeeyay ee aynu qabanay waxa ka mid ah gegida diyaarada ee magaalada Buuqood ee Taleex dadka iskale baa dhistay shilin cid kale oo meel looga keenay jirta Puntland ama Soomaaliland ay laga keenay qof 5 shilin ku darsaday miyuu jiro arigiini iyo geeliini baad ku dhisateen iyo xooggiin iyo dukaanadiina yar yar sidaa haddaan la yeelin waxa la rabaa وادوكتي immigration kii baasaboorka laga qaadanay kii xanuunsanay kii xaliinay kii meel ku fayeyba waxa la keenay waa midhihii u horeeyay ee aynu qoran aan sugno war lacag un baynu ka hadalnaa intaynu labada lugood saar ku dhaafsano har subaxeed fadhiisano aynu ka talaalayna saacad hebel muxuu yahay hebel muxuu qabtay waa reer hebel waa ku sidaa war waxaasi waxba tari waayay dadka wixii maskax leh baa lala hadlaya wixii aan maskax lahayn inuu waxba ku fariisto beeshu doonayaan ha aado doonayaan waxba loo noqon maayo waxba looma noqonayo afartii baabuur ee madmadooba ee isaaq halkan ka soo dareerin jiray meelaha la soo gelin jiray cid ka baqayso dambe wallahi ma jirto ana idin sheegay sidii qurac maqsin loogu dagaalamay 5 bilood ka hor oo 5 meel looga tuuray wallahi saas abadan ma qoraysan
gaari darawal yari wato iyo wiil yaro gaanari dib looga carari maayo dibna loogu banayn maayo boos iyo meel istaag hadeerna markay ogaadeen inaan wax wadaa loo hayin kala baydhna ka guuray loox goosiyo halkan ka xigta karinta bayl weyna ka guuray meesha la yiraahdo baa la soore dabataag yaan odhanin kala baydh dabataag meesha la yiraahdo dib bay uga guureen oo ka cararo ka noqday in loo urursado laakiin tan nool baa rabaa in la xoojiyo oo wax lagaga tago oo la ogaado markaas meel kale loo duuli karaa innaga dadkeena deegaanka deganna haddaynu isnidhaahno maamul baad leedihiin oo maamulkii ma aragno maamulkiiba dee waad ogtahay xaaladdiisu sida ay tahay waa adag tahay xaaladdiisu hadda unbaad moodaa in uu dilaacsaday baa laga yaabaa inuu dilaaco inaan odhanin maamulkii meeyey innaga lafteenna maamulkii ah innaga lafteenna baa maamulkii ah ninka maamulka uu sidaana hagaajin kara marka hore ama cali khalifa noqdo ama idinka ahaade qofkana hadda halka aniga nabar bay kaga dhacay halka nabarku ku hadii aan la dhayin halkan la dhayo dadani kuma jirto beelaha khaatumo meelaha ay ka bukaan in laga dhayaa ama khaatumo ay ka soo kici weeyday ilaa maalintii dawladda Soomaaliya dhacday ragga jiida degan ama SSC ha lahaado ama khaatumo hadda lahaade isaaq iyo cadow waa il yaaragti fadhigu tumaadeen manihin dad khaatuma neceb mana nihin dad khaatuma diiday waxaanu nahay dad khaatuma waxaanu nahay dad asal ah waxaanu nahay dad jecel nolosha ummadda khaatumo xildhibaanada leh wasiir ku-xigeenka leh wafdida noo timi waxaanu idinku soo dhawaynaynaa hambalyo iyo soo dhawayn iyo sacabo furan baanu idinku soo dhawaynayna marka xigta reer uu fadhiyo waxa inoo yimi iyo xildhibaano bay ka kooban yihiin waxaan ku hormaraya kameelahan hadda inta taagan kala baydh iyo ku hor jooga kaasaa koobka in xabadda lagu dhufanayo dhulbahanta maanta wuxuu isla qaatay iyo khaatumo maamul goboleedka khaatumo wuxuu isla qaatay oo saxiixaya xabadda qofka ugu horreysay ee dhulbahanta foojo lagu sheegay ninkii wiil kaga jiray ninkii kaga jiray oo waa ku dhacaysa taas waa taa shirka yimi waxa laga leeyahay meelaha laga soo abaabulayaa shirkaanu galayna shirka maamul goboleedka khaatumo meesha lagu hayaanu galayna ma gali karaan waa samxad iyo saxaafad abooto uma leh hadday soo galayaan ha soo galeen hadalkaygaas cadaynaya inaysan soo gali karin lixdanka aayadooda quraanka kariimka salaamka bacdi khaatumo istay Soomaaliya annolaato ha jirto ha joogto ha waarto ha taranto ha ciidanto cadowgana cagta hoostiisa tanaxaw nafta waa khaatumo dadku wuxuu moodaa in la yiri tuko hota khaatumo alkhayr waa duco marka labaysa waa magaca dhulbahante ku faana dalka iyo dadka waxaa loo baahan yahay kalsooni dhulkaaga dhidhiyo ka kaca dhulku leeyahay ay dhurwaa bay cunayaan dhulku leeyahay dhalintii meeda dhulku leeyahay waa dhulkeennii waa dhaqankeennii waa hooyadeen waa hoggaankeennii waa kaynu ku fadhiisanaa ku hurudno waxa raggu u wareegaya israaca dhulbaanta way dhulbaanta hamidoobo khaatumo dheedo magaalo waliba aayaheeday ka talisaa ciidan waxay keenaysay ka talisaa
waxay dhiibanayso oraahada ka talisa halka ay ka bugtay ka hadashaa wax allaali waxa dunyada waxay dawladda ahaan jirtay anaga soo joognay dawlad habsami hoggaan is-ogolaansho ismaqal baa dawlad heer lagu gaadha ma garanaysaa fadhiga aynu uga kacna dalkeena iyo dadkeena shacab iyo hirgelin hanti isla berbertaag hadal dhiirine gabay iyo buraanbur cadowga caloosha lagaga joogsado halkaasay u baahanta waynaga xaaraan tuug waan idin sugayno idin saadinayne sownabad ma socotaan xogiya dulayskow xeer ilaaliyaashow xilkii aydun qaadeen xejiyay xagga iyo xaggaba qabto ku xarbiyay dawladnimadu waa xore xeji canoolaa takhaatub dayowga iyo dulmiyaha iyo tuugga iyo dhuxdhuxulaha iyo dhaqan laawaha iyo kala ridaha allah inaga duwo iyo toqaaday oon kala hadhin oo sulsulayo laga cabsada allah inaga dhig sida محمد عيسى وداني وراك تلفزيون سام نيوز بلعب